السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني نفتيدا يتينبه وحان دردار مياه دردارنكي نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم قفكو أدونك وجعلا oo ahaa xaaskiisii caaisha radiyallahu canha hooyadeen caaisha ayuu siiyey ayaan rabaa inaan caawo inaguna isi siino gifti iyo hadiyadna aan isu siino anigoo og inaad dardaarankaa haysaan ama aad taqaanaan laakiin waa xusuusin insha allahu tacaala caaisha radiyallahu canha waxay ku tiri rasuulka sala allahu alay wasalam yaa rasuul allah haddii ilaahay habeenka leylatulqadriga ila kulmiyo maxaan iraahdaa su-aal cad wey wuxuu ku yidhi rasuulku sala allahu calayhi waaalih wasalam caaisha waxaad tidhaahdaa haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala kula kulmiyo allaahuma inaka cafuwun tuxibu lcafwa facfu cannii dheh allaahuma inaka cafuwun tuxibu lcafwa facfu cannii ducada aqri dadka qaar waxay ku daraan allaahuma inaka cafuwun kariimun xaliimun tuxibu alcafwa facfu canna sidaas sax maaha kariim iyo xaliim waa laba magac oo magacyada ilaahaya waa magacyo fiican laakiin ducada kuma jiraan qaabkan loo dhaho ducadu waa inta rasuulka ka sugnaatay sala allahu calayhi waaalih wasalam allaahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canni haddaba ikhwaani waxaan rabaa ducadaas bal cajaa'ibta badan ay leedahay inaynu fiirino horta kelimada cafuwun 5 jeer bay qur-aanka ku soo aroortay hal mar iyada oo qadiir la socota bay soo aroortay waxaana aad u cajab badan allah wuxuu yihi subxaana ina allaha kaana cafuwan qadiira fi suurati الnisaa waxaa cajab badan marka ikhwaani oo baraarujin ah ilaahay isagoo oo qadiir ah oo awooda oo kara oo adigan caasiga ah ku karabo haddana cafwi ku siiyo uu ku dhaafay allahu akbar 4 jeerna ghafuur ayay kelimadu la socotaa oo dembi dhaafid ah laakiin su-aasha waxay tahay 2 su-aalood inaan ka jawaabno maxay tahay macnaha cafuwan muxuu yahay waxaa la yidhahdaa 2 macnoay leedahay kelimadaasi cafuwan 2 macno ayay leedahay mid ka midihii waa siismo oo su-aalla qofaan ku weydiisanin layska siiyo raallina weliba laga yahay waa ilaahay waxa uu bixinaya subxaanahu wa tacaala macnaha labaad ay leedahay waxaa weeye al-isaalatu waalmasx yacni in la zuuliyo cafwi sida loo yidhaahdo cafaa calayhi zaman carabta waxaa yidhahdaa markii shay hore laga warramayo waxyaaba tegay waxaasi waa horu ahaa cafaa calayhi zaman waqti dheer baa ka soo aroogay ama waxaa la yidhahdaa cafat alriixu alaahaara dabayshiibaa waxay tirtirtay raadkii marka waa wax la tirtiray isaala ayaa la yidhaahdaa waa macnaha labaad ee kelimadu ay leedahay haddaba 3 arrimood baa kelimadan cafuwan ku laran midda koowaad waxaa weeyaan inuu ilaahay masaxay uu zuuliyey wixii dembi ahaa oo qofku u lahaa 2 inuu raalli ka noqday subxaanahu wa tacaala 3 inuu ilaahay siiyey cafwigiisa subxaanahu wa tacaala allahu akbar haddaba farqiga u dhexeeya muxuu yahay cafwi iyo ghafuur maxaa u dhexeeya cafwi iyo ghafuur kelimada cafuw ayaa ka xeel dheer ayaa la yidhaahdaa kelimada ghafuur xitaa sababtuna waxaa weeye ghafuur waxaa loo adeegsadaa qof ee dembi wuu lahaa dembigii qofka waa laga dhaafay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigiisa ka dhaafay uma ciqaabin laakiin asalkii dembigu waa mawjuud baa la yidhahdaayo meeshii lagama tirin waa joogaa laakiin cafwigu wuxuu la dheeryahay intii qofka loo dhaafay ayaa haddana salkii laga soo tirtiray oo waa la suuliyey ayb haddaba ikhwaanii xadiidkan iyo ducadan xilliga ku soo aroortay oo ah bisha ramadaan oo weliba 10ka dambe oo weliba habeenka leylatulqadriga insha allahu tacala ilan habeen walba waa ka baaraa la yidhi oo ka raadiya 10kan dambe hadday nagu soo aadan baanan aad uga raadinaynaa insha allahu tacaala waxyaabaha marka xikamta ah oo laga qaaday ducadan waxaa weeye habeenkaa barakaysan wanaagga uu leeyahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomihiisa uu cafinayo waa arrinta labaadee ixsaas iyo dareen
qofku inuu ictiraaf dembigiisa iyo khata'a iyo gaabni inuu gaabinayo inuu qofku is-ictiraafo. waa marka saddexaad marka le cafuwun tuxibu lcafwa, yacni qofku wuxuu ilaahay subxaanahu watacaala danni wanaagsan iyo malo wanaagsan ayaad ka malaysanaysaa. waa marka afraadee inaad ku celceliso kelimadan allaahuma inaka cafuwun tuxibu lcafwa facfu canii. waxaa ka muuqata baahi addoonku ilaahay subxaanahu watacaala mar walba uu u baahan yahay. ayib, haddaba ayuha alaxiba, waxa muhimkoo rabna inaan ishaarno waxaa weeye ilaahay subxaanahu watacaala si uu inoo cafiyo, inaguna khalqigiisa aan cafino, qalbigeennana aan ka saafi garayno xiqdiga, xasadka, karaahiyada, xumaanta ku jirta qalbigeenna aan ka saarno, ilaahay subxaanahu watacaala dartii aanu cafino. ushhidu allaha, ilaahay baan idin markhaati gelinayaa, qof kasta oo ee dhibay aniga ama wax iga sheegay ama maaragtay suu iyo xumaan ila soo aaday, ilaahayow dartaa baanu cafiyey. allaahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canii. idinkana waxaan idinka codsan qof walbow inaad dadka muslimiinta iska cafido si ilaahay subxaanahu watacaala adigana kuu cafiyo. ducadaasna carabkeennu ha la qabsado, habeen walbana yayna ku dhaafin inaad ilaahay subxaanahu watacaala weydiisato si aad dardaarankii rasuulku uu siiyey qofkuu adduunka ugu jeclaa oo xaaskiisa caaisho ahayd aan inaguna u helo. allaahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canii. allaahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canii. allahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canii. jazakum allahu khayr wbaaraka allahu fiikum. السلام عليكم ورحمة الله.